halkan waxaa fadda buula sheekh ee magaalada Gaarisa waxaa ka dhacay arooska Maxamed Cabdixamiid Sheekh iyo Najma Yuusuf oo ah lamaane dhagala. Arooskooda ayaa ahaa mid aad u soo jiitay eheladii wiilka iyo gabadha iyo sidoo kale saaxiibo badan. Waxaa la ii sheegay in saaxiibada Maxamed ay uga yimaadeen gobolada kale ee dalka si ay uga qayb galaan arooska Maxamed iyo Najmo. markii guriga loo soo galbiyay Maxamed Cabdixamiid ayaa isaga oo qof kale uu ka turjumahayo waxa uu iga warramay sida uu dareemayo iyo sida uu ku soo bilowmay asaga iyo Najmo xiriirkooda. Say u aragtaa maanta arooska? I am happy. Today is a happy day. Maanta waa maalin farxad leh. Maxaad oys? Jaceelkan hooyada oo yiri. Ilaa intee ku gaartay iskuulka? Iskuul waan boge. Okay. From 4 boge. Okay. College Nairobi oo ICT baan akhristay. Shahaado ma haystaa. Gaarsan hadda u soo wareegay. hadda shaqaan raadsanayaa. Shahaadooyinkayga waan haystaa. Gabadha guursatay magaceedna Najma Yuusuf. goorba isbarteen gabdha walaalahay iskuul isla dhigan jireen xaafadda imaan jirtay markaas ay xaafadda imaan jirtay saaxiibaan noqonay aarko slowly saaxiibaan noqonay okay haddana ina isguursanay noqotay go'aanka aanu iga imaado yiri marka wazaazay oo sheegay parentskay oo sheegay way ugu raaceen but ana choose gareste ana doortay maxaa kamid ah wuxuu yiri markii hore waxa dhibaato jiro malaha laakiin aabahda markii hore diiday laakiin markii dambena waa heshiinay waa la isii gabadh. Cabdixamiid Sheekh oo ah aabaha dhalay Maxamed dadaal adagna u galay in arooska wiilkiisa uusan ilqadis yeelanin waxa uu warbaahinta istaa la wadaagay dareenkiisa. arooska aad baan ugu faraxsanahay waayo maalinka u horeysay ee uu ii sheegay family ayagana ilmo dhagala qabaan oo ehelkana oo reegaarisa oo aan rixim aan nahay dadka reegaarisa ehelka family kamid oo waliba aabaha gabadha dhalay aan saaxiib ahayn markuu ii sheegay uu yiri family dhagoole sidaanadoo kale aaba oo cid dhagala ilmo dhagala dhaleen ayaan gabar ku soo arkooday gabadhaas aan jeclaaday in la doona rabaa waan ku farxay family-gi waan raadiyay family-gi wuxuu noqday in aan saaxiib nahay oo asagana ilmo dhagala dhalay oo 3 ah maadaama anigana aan 5 dhagala aan hayo Ilaahay siiyay oo Ilaahay igu nimceeyay asagana Ilaahay uu 3 siiyay waxaan u arkay in aaban iska xignaba dadka reegaars kale aan iska xigno maxay la dhagoolada qabiil ma laha inta dhashana qabiil ma lahaanayso saas u bay noqonaysaa asagoo u mahad celiyay dhammaan intii ka soo qayb qaadatay kamira dhalinta arooska Maxamed iyo Najmo maadaama nin muctaraf aan ahaa أولاد إلهي سي شنت دجها لأن لجا ورقبي لأن الله نحن كرحم أها أوضم contribution بأراس كاس ويا شيء خاصة سيجارة وحنا نقوم حد عرينها يعني كان مضحدك محمد حسن مضحدك ستا اف ام أراس كعاود عقاب اللي بحبوك قاتي سر حمل ما يهلمون أو قاتي وأنا نقوم حد عرينها ما حد جواد dhinaca kalena qaar ka mid ah eheladii arooska ka soo qayb galay ayaa sidoo kale farxadooda nala wadaagay. arooska kii lagu reesto lagu raaxeysto wiil iyo caano lagu noqdo gabar iyo dollar ilaahay isku barakeeyo labada cunug la isku aroosay Maxamed iyo Najmo guurkiina guur khayr gurigiina gurinagi waan leeyahay insha Allah. Maxamed Cabdixamiid Sheekh Xasan oo hambalena hambaliyo aroos farxad leh oo lagu doo Allah ka dhigo aan u rajaynaa insha Allah. Cabdiwali Cabdi Maxamed warbaahinta istaa magaalada Gaarisa.